madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa maanta kula kulmay dalka Switzerland madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog iyadoo sidoo kale kulankan uu qayb ka ahaa wiilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Eric Trump si kastaba madaxweynaha Soomaaliland ayaa si gaar ah ula kulmay madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog xogaha warbaahintu heshay ayaa tilmaamaya in kulanka labadan hogaamiye Israa'iil iyo Soomaaliland looga hadlay sidii labada dhinac u dardargelin lahaayeen xiriirkooda sida ugu dhaqsiyaha badanna loo dhameystiri lahaa heshiisyadii dhacay wixii ka dambeeyay aqoonsiga Israa'iil dhamaadkii sanadkaynu ka soo gudubnay 2025 madaxweynaha Soomaaliland oo bartiisa Facebook soo dhigay isagoo ka hadlayay kulankan ayaa sheegay in kulanka Soomaaliland iyo madaxweynaha Israa'iil diiradda lagu saaray sidii labada dhinac ay u xoojin lahaayeen xiriirkooda Ciro ayaa sidoo kale hadalkiisa ku daray in kulankan ka dhacay Switzerland qayb ay ka ahaayeen hogaamiyaal kala duwan iyo shakhsiyaad saameyn leh marka laga yimaado warkan uu madaxweynaha Soomaaliland kaga hadlay kulankan haddana dhinaca kale madaxweynaha Israa'iil ayaa isaguna bogaadiyay kulankan wuxuuna tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay sida uu ku qoray bartiisa Twitterka ugu dambeyn kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ay wada yeeshaan madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Israa'iil kadib tan iyo markii dhamaadkii sanadkii aynu ka soo gudubnay 2025 lagu dhawaaqay aqoonsiga Soomaaliland kaas oo uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu